السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسنا أصحابتنا قالي أحمل البجوكتان بعد كسر دبتان مقال آدي آد وحيس بدن مقال كان يوه مقال إن بدن أصحابنا بعد برلب فكس أي نسوي ديان سيد أقول سهلا أكون challenge لو باسيو مقال واحد جري أو أصحابنا بعد برلب فكس أصحابته ذلوا داجين أنت بدن هسه مقال كان وحويان ومقال آدو كوبان سيد الصح ذا أهل لو طلع قلها هديات ورعدنا الله إذن كي وحنا شينينا إن أتكون ذا أتكل بقبتي inaad baasisi weysay aad baasisi doonto alla idinkii qodobo waxa jira afar qodob oo ka kooban yahay muuqaalkani hadii aad sida saxda ah sida loogu talagalay aad u dul martid ama aad u qaadatid waxa rajaynaynaa in akoon dambo challenge dambe xiga oo saka guba doonin alla idinkii qodobka ugu horeeya maxay tahay qodobka ugu horeeya waxay tahay aad ay u sahlan tahay in la baasiyo akoon challenge ah waa hadii sida saxda ah aad u martid ugu horeen inaad nidaamkaaga ixtiraamtid waayo waa nidaamkaaga waa shayga ugu wanaagsan ee aad maanta ku gaari kartid guulahaaga waa waxa dajisatay waa wax maanta qofna aysan kugu qasbin waa rule adig ku shaqeeyay rule-kaaga ayaa la rabaa in ixtiraamtid ixtiraaminta macnaha waxa ugu la jeednaa waxay tahay inaad marba aan khilaafin oo rule-kaaga wax ka dhiman inaad suuqa aan ku degdegin oo hadii aad doonaysid inaad account challenge ah aad baasisid ama lacag kale to adiga akoona kale kugu jiraan oo live ku ah qodobka xiga waxay tahay inaad go'aan adag leedahay ika go'aanaasho waxaad go'aan ku soo gaartay inaad akoon challenge kan aad baasisid si noloshaada dambe aad mustaqbalkeeda aad u wanaajisid go'aankaasi ha ahaado go'aan inta badan aad ku adag tahay go'aankaaga oo aad marnaba qaadanin waxa kamid ah in maanta tradeyo tusaale waxaad go'aan ku gaartay inaad London trade gareysid oo New York aan trade gareyn hadii London trade ka aad qaadato asal kaaga dhaco New York qorshe kugu ma jirin laakiin waa qaadatay meeshaas maxaa ka dhalanaya marka inaad go'aankaaga aad ku xadgudubtay oo sidaas aad ku jibisay wixii aad dajisatay qodobka saddexaad maxay tahay inaad risk management aad isticmaashid oo aan iska ordinba akoonkaaga lodka uu xamili karo waa inaad ogsoon tahay hadii aad tirahdid akoon 10k example aad haystaa akoon 10k hadaad ku gashid ka waran 10 lot ama 20 lot u dhigma hadaad ku gashid akoon loogu talagalay 100k lot loogu talagalay hadaad 10k ku qaadatid akoonkaasi ma khatar baad gelisay mise waa ku degan yahay akoonkaasi khatar baad gelisay akoon degan maahan waxa si loo darab ku rido Soomaa qodobka xiga waxay tahay in dareenkaaga trade aad xakamaysid dareenka trade waxa kamid ah trade qaadatay tusaale trade-ka in yaro la soo kugu qabtay ama in yaro oo khasaare yar aad aragtay trade-kii maanta idil waa ka walwalaysa waxa leedahay trade-kani mar loo ma igu soo laabto intriga hadaan xirin qaladaan ku qaatay saano ahay maanta dhan walwalba kugu furan balse inta aan trade-ka qaadan ka hor xisaabi maxaa walwal iyo daran xakameyn aan u maanaysa waxay maanaysa xitaa inaadan kabar qabinba trade-ka doo asal kaaga dhaco inta kaaga baxaysa haduu TV kugu dhacaan inta aad ku soo galaysa aadan ka warhayn trade-ka intaadan qaadan ka hor xisaabi maxaa kaaga baxaya waayo waxa soo ogaatay in nidaamkaaga waa soo ixtiraamtay koow go'aan waad soo qaadatay labo risk management isticmaal saddex dareenkaaga trade wax ka meesan yahay inta aadan qaadan trade ka hor wax xisaabaysay qodobka kale waxay tahay cidnaha la qaadan trade qodobkani mar walba ku soo celinaa cidnaha la qaadan trade macnaheedu waxay weeyaan inaad inta cidna aadan la qaadan qofka waa kala fikir duwnaan kartaan meesha wax ka aragtid qofkan galeeto waa ka duwnaan karaa adi markay ku saameynaysaa fikir waad waday kartaan USD waxaan ka rabaa buy GBP USD sell ka rabaa USD kaadaan sell ka rabaa dabcan fikirkaas waad waday kartaan laakiin intriga inaad ku kala duwanaantiin aad bay u caan tahay qodobka ugu dambeeya waxay tahay trade hadduu asal kaaga dhaco maalintaa iskaga tag suuqa maalintaasi iskaga caraaw waayo hadiisan kuu degsaneen jadwal ah dad waxaa jira London trade hal trade qaata ama hal trade raadiya New York hal trade raadiya hadii jadwalkaasi ku degsan yahay ma aan ku darin laakiin hadii adigoo zaxmad ay kugu furmayso oo aad leedahay lacagti ka baxday ama akoonkaagii khasaarad ku timid soo celi waxaan ku leenahay adeerow maalintaasi suuqa iskaga tag oo maalinta xigta kaleeto imaaw waa arinta ugu sahlan ee aad akoon challenge aad ku baasi kartid intaan qodob hada dul martid qodobka labaad aan isla eegana qodobka labaad muxuu ka hadlayaa marka qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa waxay tahay waxa suuqa la trade galaya 5 maalin qof walbo maanta trade ahaan oo ka warhaya
waa isniin talaado arbaco khamiis jimco intaa maalin ayaa la trade garayaa sidoo kale intaas maalin waxaa inta badan laga trade garayaa laba xilli oo la kala yiraahdo London session in New York waa laba xilli oo suuqa dhaqaaq fiican u leeyahay lacagaha London aad ku dhaqaaqa waxa kamid ah lacagaha GBP-da ku lamaanaysan balse lacag kale waa jiraan oo fursad bixiya laakiin lacagaha ugu wanaagsan dhaqaaqoodu uu aad u sareeyo xilliga London waa lacagaha GBP-da ku lamaanaysan hadaba sidoo kale New York waxa wacan in la eego ama la fiirsado ama diiradda la saaro lacagaha ku lamaan dollarka waayo markaasi dollarku waxa uu leeyahay dhaqaaq hadaba marka waxa jirta in inta badan dadka ay ku jahwareeraan London iyo New York keebaan trade garaya cid kala dhahayso ma jirto xilligaasi qaado laakiin haddii la yiraahdo keeba wacan ama dhaqaaq fiican xilliga New York waayo New York waxa isla kulmaya labada xilli mid dhamaanayo iyo mid haatan soo furmaya labadii ayaa isla kulmaya suuqan dhaqaaq weyn ayuu yeelanaa taamarkan gudubno qodobka saddexaad maxay tahay qodobka saddexaad waa qodobka ugu muhiimsan ee aad account challenge aad ku baasan kartid tusaale waxaan ka soo qaadanaa account 10k inaad haysatid waxaad qaadatay trade kugu horeeyay waxaan ku gashay lotka saxda ah account 10k lotka lagu galo qof walba oo garan kara tusaale fursad waxaa heshay USD aad qaadatay xilliga New York aad qaadatay waxayna ku buuxisay dhammaan sharciyadaada waxaad kaga socotay 1 to 2 r tusaale lotka ku gashay waxa weeyaan trade ugu horeeya kan waa trade 1 waxaad gashay lot 1 oo la mid ah 10 lagu dhuftay NTTB aad kaga socotay oo 20 ah waxay la mid tahay 200 tusaale akoonkaasi haddii maanta guuleysto ama akoonkaasi haddii maanta trade win oo ku noqdo waxa balaas ku kordhaya 200 waa lotkii 1 ka ah markii la sarifo waxa noqonayaa 10 waxaad ku dhufataa 20k oo bib aad kaga socotay kadibna waa $200 okay ama 200 bond ama 200 euro hadba akoonka haysatid sidoo kale qaybtani waa qaybta hadduu trade-ka ku hareermada meeshalkaaga dhaco 10 bib ayaa asalkaaga ku ah haddii 10 bib oo asalkaaga garaacana waxaa meeshaasi ku weynayda $100 akoonkii waxaa minus ku noqonaya 100 trade-kaagii ugu horeeyay tusaale ahaan ka soo qaad oo guuleystay akoonkaagii waxa ku kordhaya waxay tahay waa 200 waa $10,200 aad haysataa ka soo qaad trade-ka xiga waxaa la doonayaa inaad 1 to 3 raadisid sidoo kalena alladka sare u qaadid waayo faa'iido aad ku jirtaa oo wax ku difaacay aad haysataa faa'iido aad ku jirtaa waxaad ku galaydaa lotto tusaale ahaan waana trade-ka labaad lotto markaad gashid lotto waxa uu dhigmaa waa 20 waxaana ugu socotaa 1 to 3 oo 30 bib ah 20k waxaad ku dhufanaydaa 30 waxay la mid tahay 600 haddii trade-kaasi aad ku guuleysatid waxaad haysataa meeshaasi 10,200 ku dartaa 600 oo balaas ah waa 10,800 phase 1 halkaasi ayaad ku baasisay balse haddii trade-ka oo qaybtii dambe aan imaano oo lotkii aad weynaysay oo 10ka bib asalkaaga dhacdo waxaa meesha ku weynaysaa 200 oo balaaska hore ku ahaa oo hore aad u soo shaqaystay oo trade-ka hore ku ahaa waxaad ka soo qaadaa in trade tusaale trade-kii koobaad waad ku guuleystay kii labaadna ku guuleystay akoonkaagii sidaasi ayaa phase 1 u baasisay okay haan u soo gudubno phase 2 phase 2 waxa uu la mid yahay phase 1 oo kale waxba kuma duubno trade-kii ugu horeeyay waxaad ku galaysaa lotka saxda ah tusaale lotkii saxda aad ku galaysaa phase 2 lacagta laga rabo ama percentage laga rabo waa ay ka yar tahay phase 1 wixii laga rabay tusaale lotka saxda ku gashay 20 bib aad raadinaysay 200 ku guuleystay akoonkii waxaad meesha ku haysataa waa $10,200 haddii oo asalkaaga dhacana meeshaas waxa ku weynaysaa $100 waa soo soconaa inuu asalkaaga dhaco iyo wixii loo xalinaa markuu asalkaaga dhaco okay trade-ka labaad qaadatay trade-ka labaad ama trade-ka xiga lotkii waa sareysiinaysaa sababtoo ah waxaad haysataa faa'iido oo akoonkaaga difaac ayaa ku haystaa akoonka haddaadan difaac u haysan waa ay soo socotaa qodobka afraad aan kaga hadli doonaa leydinkii haddaba markaan isla eegno lotkan markaan waa la siyaadiyey lotkii markii hore maxaa lagu galaya 1 hadda laakiin 1.5 oo dhigmata 15 ayaa lagu galayaa
waxaad raadinaysaa markaan lacag badan lagama rabo biib badan lagama rabo oo lodka kan markii la joogo 1 to 3 raadinayo phase 1 oo biibka ayaa badnaa hase yeeshee kan laakiin sidiisii ayaad biibka u raadsanaysaa 1 to 2 ga raadsanaysaa 1 to 2 ga usoo laabano 15 lagu dhufto 20 oo la mid ah 300 horna meeqa weysta 200 waxaadna ku dartaa balaa 300 akoonkii phase 2 ga halkaasi ayuu ku baasay waana 10500 qaybta afraad akoonka 10k ayaad haysataa weli tusaalihii 10k ayaa noo socda trade-ka ugu horreeya aad qaadatay waxaad ku qaadatay lodkii saxda ah adigoo u socda 1 to 2 lodkii saxda marka gashay trade-kana waxaad ugu socotaa 200 inaad ka heshid haddii khasaaro u aadana $100 ay ka go'ayso lan SL-kaaga waa 10 bib trade-ka soo qaado ku hareermaray kan maxaa ku qornay ku guuleysatay Soomaa kan laakiin waa ku hareermaray maxaa sameynaysaa marka hadduu trade-kii ku hareermaro $100 laga gooyo 10,000 laga jar 100 meeqaan $9,900 halkaasi waxa kaga jirta maanis oo ah khasaaraad ku jirta maxaa sameynaysaa marka laga baahan yahay waxaa sameynaysaa trade-ka xiga lodka waa la yareynayaa oo waa la kala qaybinayaa oo lodkii lagu galay 1 laba loo qaybinayaa meeqa u galay marka waxaad u galaysaa 0.5 oo dhigmata 5 oo lagu dhuftay 20 lacagta aad raadinaysaa 20 kan wuxuu dhigmataa waa 20 bib waay bibka raadinaysaa waa maanta trade-ka labaad aad qaadanaysid waxaad raadinaysaa $100 waayo lodka ayaad kala jartay bibkana waa sidiisa okay trade-kaasi aad qaadato labaad ka soo qaat inuu ku hareer maray oo asagana oosan aad ku guuleysan waxaad maraysaa trade-ka labaad oo SL ah akoonka hore waxa uu haystay 9,900 tobankii bib haddii lagu dhufto 5 waxay noqonaysaa $50 oo maanaysa 9,900 hore uu haystay laga jaray 50 haatan waxaa haystaa $9,850 ayaad haysataa akoonkaaga maraya trade-ka saddexaad oo trade-ka saddexaad markaa leenahay ma ahan inaad isla maalintii trade aad qaadanaysid oo trade-ku maanta ka SL-kaaga dhaco aad gashid xilli kale maahan macnaha waxaan uga jeednaa maalinta xigta macnaha week weeyaan trade-ka saddexaad lodka waa la yareynayaa oo lodka daayay oo laba loo dhigay markaan 0.3 ayaa loo galayaa mar walba maanis ama khasaare aad ku jirtid lodka waa la yareynayaa okay markaani waxaad ugu socotaa wili bibka aad raadinaysaa oo 20 bib ahay $60 aad raadinaysaa halka SL-kaaga uu yahay 10 bib haddii lagu dhuftana saddexda aad u gashay oo u dhigmata 0.3 oo u dhiganta $3 aad u gashane waxa u dhigmaysaa $30 maanaysa akoonkaagii waxa hore uu ahaa $9,850 waxa uu haatan noqonayaane $9,820 oo meeshaasi waxa kaga sii baxaya $30 waayo trade-kii saddexaadna uu ku hareermaray akoonkaaga waa mid aan walwal weyn ku jirin waayo inta hadda sidaan ku socotid akoonkaaga xilliga oo hawada ka baxayo ma dhow waa haddii aad laakiin go'aan leedahay oo mar un waa u soo laabanaya tartiibtaasi laakiin anaga waxaan aragnaa akoonkii oo maanis ku jira in lodkii la sii la jibaaray in trade badan la qaadanayo maya suuqa waxaa la jibaaraa ama akoonkaaga waxaa la kordhiyaa lodkiisa ama akoonkaaga lodkiisa waxaa la kordhiyaa waxay tahay waa markii aad faa'iido ku jirto oo difaac aad haysto haddaan difaac haysan sidee aad ku kordhinaysaa lodka waa maya waxyaalaha asxaabta jahwareer waxay tahay in asigoo khasaaro ku jiro oo khasaaro baaxad ku jiro ayuu wuxuu leeyahay sida hal mar u soo celisho khasaaradii aan galay waa inaan la wajibaaraa waa inaan ku qaataa waa inaan saan yeelaa asxaabta bahda Berlaba Fix qodobadani aadka u muhiimka ah haddii aad ku dhaqantaan alaadinkii walwal dambo oo akoon inaad baasisid ah kama qabi doontid teeda xigtana iska ilaaliya inaad news aad tiragelisaan akoonadan challenge ah news ma ixtiraamaan SL haddaadan ogeyn hadda la soco akoonada challenge-yada news ma ixtiraamaan oo news SL-ka haddaad dhigtid waa uu ka dhex baxayaa akoonkaagiina sidaasi ayaad kaga taqaluseedaa haddaba akoon challenge ah news haba ku qaadanba ixtiraam sugo rulkaaga waxbarashadu inta badan waqti waa la geliyaa laakiin markii heerkaani la soo gaaro waa heerka uu adag qofka inuu sal fadhiyo yeesho ama inuu meesha ka cararo waayo maanta haddii wax lagu sheego ABCD lagu sheego ama 1 2 3 4 5 lagu sheego waad qaadan kartaa laakiin qofkii ku dhaqmi lahay qofkii maanta wax ku sheegay ama macaan ka soo baro ama si gaar u baro ama meel gooni ka baro qofka doonta ka baro qofkaasi kulama joogo qofkaasi gacanta kaliya kuma ku dhahay doono qofka maanta kaliya laptopka iyo computerka iyo mobilka isla dul taagan waa adiga
adiga laga rabo inaad marka wax qabsid cid kalena waxba kaama gelin taada un raaco qof wuxuu yiri qof wuxuu dhahay aniga Soomaaliland ahna inta badan waxaan jeclaan lahaa maxaa la yiri iyo maxaa la dhahay maxaa la dhahay intaad ku jirtid waqtiga ka lumaayo 2025 2026 shanta sano 10 sano haatan soo socoto haddii Ilaahay gaarsiiyo heerkay taagnaanaysaa waxaad noqonaysaa waa inaad leedahay aragti fog waa inaad leedahay mustaqbal fog boqolaal akoon jiro dadka gubtaan inaad dib aadan u laabanin inaad mar walba aad soo dhiirigelisid dhiirigelin qof kale ku sameeyo waxa ka fiican mid adiga nafsadaada u sameeysid qoro ABCD aniga intaan rabaa saana rabaa mar walba aad dareentid inaad caajisaysid mar walba aad dareentid inuu asalkaaga badan yahay mar walba aad dareentid inuu akoon ka gubtaan soo qaado waxaad qoratay isku sheeg isku aqri waxaad tiraahdaa aniga qodobka markaan qoranay hadafkan kala yahay muxuu ahaa sidaan soo ka marbanaa weli ma gaaro waamay laakiin waa inaan gaaraa asxaabta bahda Berlaba FKS meel walba joogtaan waxaan idin leenahay guuleysta waxaad ogaataan guushu mar walba waxa ka sokeeya guul daro guusha dhadhankeedu waxa la dareemaa markaad guul dareysatid maanta ma jiro anaa ku sheegaya ruux suuqa forex soo galay oo aan zaxmad iyo xanuun aanan dareemin ma jiro ninka ku dhahayna ma aanan dareemin been buu ku sheegay haddaan ku leeyahay suuqa forex boqolaal akoonaad soo gubaan akoona badan baa laga soo taqalusaa wax badan baa la soo arkaa ogsoonow maanta meesha taagan tahay shalay dad baa joogay adigu maanta joogtaa waxaan rajaynayaa haddaad u dhabar adeegtid in meeshaad hiigsanaysid alla idinka aad gaari doontid suuqu ma dhammaanayo oo uu naga badan yahay cid walba oo uu ka gaarsiin karaa soo taada maqal qof markuu waxbarashada ka daaho waxaa jirta arrin ah ardaygu markuu kasto waxbarashada ka daaho tusaale oo weynaan oo noqdo kaleeto waxaa la yiraahdaa in koorsi degdeg ah la geeyo saan ha la geeyo Soomaa suuqani forex waa dadyow tusaale dad adlisti 30 sano 20 sano ka horeeyay wax qabsanay ka hatin badnaay hadduu Ilaahay ku kaso oo suuqan Ilaahay wax kaga sahlay inta 20 sano ay wax raadinayeen adiga Ilaahay 3 sano 4 sano 5 sano kugu sii karaa aad baad mahadsantihiin bahda Berlaba FKS meel wajigtaan guuleysta salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh